ku weynaato adoo balad aamina joogo waddankaagii aamin uu yahay jirhkaagiina uu caafimaad qabo ilaaha jalla wacalaa bisha rabadaan ku soo gaadhsiiyey waa inaad ugu mahadnaqdaa. dad badan baa kal hore inala soomay laakiin maanta adduunyada ma joogaana way ka intiqaaleen. dad badan baa kal hore iyagoo caafimaad qabuu rabadaanku u soo galay way soomeen laakiin qaarkood maanta waxaa laga yaabaa inay bukaan ay yihiin ay jiifaan. marka waa inaa nicmadaasi ay qalbigeenna ku weynaato. ilaahay baa le wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana la daluumun kafaar baa ilaahay yidhi. haddaad damacdaan nicamta ilaahay inaad tiro ku soo koobtaan ma soo koobi kartaan baa ilaahay yidhi. runtiina waa bil aad u khayr badan weeyaan. maantana waa maalin jumca. jumcadu iyadoo maalmaha kaleba ka fadli badan haddana markay aad ku soo dhacdo maaragtaana bil rabadaan ajarkii iyo khayrkii uu sii ziyaadayaa. oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiid waa kii lahaa maalmihiina ay nagu soo noqnoqonaya maalinta ugu fadli badan buu nebigu yihi waa maalinta jumcada. 5 khasladood bay jumcadu maalmaha kale ay kaga fadli badan tahay. khasladda koobaad buu nebigu yidhi abuna aadam calayhi salaam maalin jimco ayaa nebi aadan la abuuray. maalin jimce ayaa jannadana la geliyey. maalin jimce ayaa jannada laga soo saaray. maalinta jumcadii waxaa ku jirta buu nebigu yihi saacatulijaaba, saacad ilaahay uu ducada qofka ducaysta uu aqbalo. maalinta jumcadana waxa uu nebigu yihi saacadda qiyaamada ayaa dhici doonta. marka bishii rabadaan iyo jamce waa nicam weyn weeyaan. ilaahay inaan ugu mahadino weeyaan. habeenkii ugu horeysay bishani ay bilanaysay waxa uu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya. malag baa dhawaaqayo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil. warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil. waa bishii khayrka weeyaan. waa bishii naxariista weeyaan. waa bishii dembi dhaafka weeyaan. waa bishii naarka xoraynta weeyaan. malag baa odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil. kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil oo soo jeeso oo cibaadada ilaahay soo qaabil oo salaada taraawiixda soo qaabil oo qur-aanka akhriskiisa soo qaabil oo kahratu lkhayr. bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helaye soo jeesa buu leeyahay malagaasi soo qaabil. wayaa baaqiya shari aqsir. kii dembiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayow bishani bishii ilaahay la caasinaya dembiga la laaqanayay ma ahayna ka joogsa buu leeyahay oo ka gaabso. waa bisha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii rabadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa. wa fii riwaayatin albaabada raxmadda ayaa la furaa. albaabada naarahana waa la xidhaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. maradatu shayaaiinna waa laga xidhaa bini aadanka. waa bisha keliya ilaahay jalla wacalaa qur-aanka uu ku sheegay magaceega shahru ramadaan. waa bisha maaragtaane la yidhi waa bishii qur-aankuna uu soo degay. waa bisha keliya ee nebigeennu uu yidhi habeen kasta oo bishaa rabadaan ka mida buu nebigu yihi waxa uu ilaahay leeyahay addoommo uu naarta ka xoreeyo. waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada jannada la furo. waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada naarahana la xidho. bal tiriya fadaa'ilkeyga bishaa rabadaan fadligay leedahay. waa bisha keliya ee nebigu uu yidhi maradatu shayaaiinna waa laga xidhaa bini aadanka. waa bisha ay ku jirta habeenkii weynaa ee qur-aanka ilaahay uu sida gaarka ugu ammaanay ee uu yidhi innaa anzalnaahu fii leylati اlqadr. 10ka dambana allah ina gaadhsiiye. waa bil aad u barakaysan oo xurmaddeeda in la siiyo ayay mudan tahay bishani. asawmu junna. soonku waxau nebigu ku sheegay fadaa'ilkiisa kadaalika inuu yahay gaashaan.
الصوم لي وأنا أجزي به إلهينا واكلها حديث القدسي صونك أنيقا أيا إسكالي أنيقا أنا أدونك كعب المرين دونا وابشأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام يري صائمكو انتو نن أفرين وحا أوليه دعاء الأقبلو صائمكو انتو سيدا عيسو هذا فرك أودي أرقروبي سحلق دعاء والله أقبلايا باهد هذا إله وشيغو صومكو وقاشان الصوم جنة نارتو قاشان كاغا نقونيا شهوات النفط أيو قاشان كاغا نقونيا معاصد أيو قاشان كاغا نقونيا حنونada dhakhtaradu ay daweyn kari waayaan ayay bashar rabadaan ay daweysaa bal dhakhtarada ay waraysta oo dhahada bishee baad ugu shaqo yartihiin